السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan halkan ka salaamayna dhammaan ardayda ku xiran channelka Hadaf Show. waxaan idin leenahay jimco wanaagsan, subax wanaagsan, maalin wanaagsan, sidoo kale habeen wanaagsan. qof waliba waqtigay u tahay ayaan ku salaamayna oo waxaan ku salaamayna salaanta islaamka oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib insha Allah maanta waxaan isla fiirin doonaa maadaama dhowr arday soo weydiiyeen ama dhowr qof oo soo weydiiyeen sida natiijooyinka imtixaanka dugsiga sare loo xisaabiyo, yacni ardada bundadoodii kadib totalkii celceliska iyo natiijada iyo kaalinta oo ardayga uga baxay dugsiga sare iyo gradekiisa. so insha Allah waxaan rajeynayaa arday walba ama qof walba oo channelkan soo booqda in uu ka faa'iideysan doono hadduu waliba insha Allah. saad u jeedaan waa ardada magacyadoodii, qof oo arday walba buundada uu keensaday. insha Allah waxaan soo saari doonaa totalkiisa hadduu waliba. so marka hore totalka ayaan ku dhufanaya, click siinaya, waxaan leeyahay equal, waxaan leeyahay sum, waxaan rabaa inaan isku daro buundooyinka uu keensaday. sum bracket ayaan furayaa, kadib waxaan rabaa in maadada tarbiyada ilaa iyo maadada ugu dambeyso history inaan isku daro. so marka tarbiyada waxay aadan tahay C5, waxaan leeyahay marka C5 ayaan leeyahay shift column, and then maadada ugu dambeysana oo ah history waxay aadan tahay L5. waxaan qorayaa L5 ayaan leeyahay, kadib qoyska ayaan xirayaa. marka inter aan dhaho oo maxaa ii soo baxay ardaygan buundada uu keensaday oo ah 917 ayuu keensaday. waa marka la isku daro inta maado oo galay imtixaanka, marka la isku daro waxa uu keensaday 917. so marka waxaan rabaa in ardadan kale ayagana aan soo saaro qof walba buundada uu keensaday. so marka click ayaan siinayaa qofka ugu horeeyo, then marka calaamada pluska soo baxdo ama ay koos u noqoto ayaa waad jiidaysaa ilaa qaybta hoose ayaad geenaysaa, kadib waad ka fuqaysaa. kadib saad u wada jeedaan qof walba buundada uu keensaday ayaa halkan kusoo muuqan doonta. so qofkood waxa uu keensaday 917, 870, 864, 932. so waa dhammaantood waxa weeye arday walba buundada uu keensaday weeye. so marka waxaan rabaa inaan soo saaro celceliska marka ardayga uga baxay iskuulka ama dugsiga sare ama fasalka form 4 ahaado. so marka celceliska waxay noqon sidee ayaan ku soo saari karnaa? marka waxaan leenahay equal ayaan leenahay, marka waxaan qoraynaa average, waxa la yiraahdo average ayaan qorayaa, kadib bracket ayaan furayaa. waxaan rabaa marka average ka qaabkan ku soo inaad fiican u fahantaan. totalkii waxaan u aadinayaa M5, totalka ayaan click ku siinayaa M5 ayaa waxaan leeyahay loo qaybshay 10 maado, yacni 10ka maado marka isku daro wuxuu uu keensaday ayaa waxa uu qaybinaysaa 10 maado. waxaa leedahay enter ayaa leedahay. marka ardaygan waxa uu keensaday celceliskiisa waxa weeye 91.7, يعني أرضي ووري وحقو كان صديق الأليسكيس وحوي 91.7. سو حرا مركا إن أرضان كلا أيجانا أن صاروا قفل با الأليسكيسا أنت أولى أجيال. سو مركا كليك مكان كل فتقف كورية ماشان جيس كيان أيان على فلات سارة يا كدي مركا على مدى بلاسكا يصاب بحضو أيان جيدا يا مركا جيدو هو جيدا يا إلا هو سينجينا يا. so sad u jeeda waxa ii soo baxday arday walba celceliskiisa. arday ugu horeeya 91.7, 87, 86.4, 93.2, 89.3. so waxa weeye dhammaan ardayda celceliskooda buundooyinka marka loo qaybsho weeye. okay markaan waxaan galay natiijada marka, yani ardaygan inuu dhacay ama inuu baasay ama inuu haray ama inuu gudbay sidee loo soo saari karaa? sida ugu fudud aan ku soo saari karno waxa weeye equal ayaan leenahay. marka equal markaan dhahno, marka equal aan dhahno waxaan if haddii ayaan leenahay. marka bracket ayaan furayaa, celceliskeeni ayaan click siinayaa N5, grade ayaan leeyahay. marka haddii ardaygan ama buundadan dhibcaha uu haysto ama celiska uu haysto haddii konton ay ka badan tahay ardaygaas, yani wuu gudbay ama uu baasay meelaha konton ayaan leeyahay. kadib
comma ayaan dooranaya marka comma markaan doorto shift double quote ayaan dooranayaa shift double quote waxaan leeyahay gudbay ama baasay soo marka gudbay ayaan leeyahay ama baasay ayaan leeyahay baasay ama gudbay isku meeshii weey waxaan leeyahay shift double quote ayaan leeyahay markaan dhaho haddana comma ayaan leeyahay shift double quote mar kale ayaan dooranayaa oo waxaan leeyahay dhacay ama haray iska dheh kadib shift double quote ayaan dooranayaa soo marka intaas aan dhaho waxaan leeyahay enter ayaan leeyahay inta markaan dhaho maxay soo baxay ardayga koowaad wuu baasay ama waa uu gudbay isku meeshii weeye soo waxaan marka in arday walba ardaygii dhacay ama ardaygii haray inaas ogaado soo marka asaga ayaan ku dhufanayaa kadib geeskan ayaan dooranayaa marka calaamada blaaska ii soo baxdo waa jiidayaa markaan jiido oo aan jiido warkaas waxa ii soo baxay waxa weeye ardaygii baasay iyo ardaygii dhacay ayaa ii soo baxayso soo ardaygood uu baasay ardayga ugu hore wuu harin marka laba arday ayaa hartay labada arday hartay waa u jeednaa soo marka waxaan rabnaa marka kaalimaha inaan soo saarno marka kaalimaha say ku saari karnaa kaalimaha waxaan ku saari karnaa waxa weeye inaan ogaano ardayga kaalintu galay ardadan mudooyinka keensadeen yaa kaalinta kuwad galay yaa labaad galay yaa saddexaad galay yaa afraad galay sidee marka ku soo saari karnaa marka waxaan leeyahay equal ayaan leeyahay marka equal markaan waxaan leeyahay rank ayaan doornaa marka rank markaan doorto waxaan leeyahay bracket ayaan furayaa marka waxaan leeyahay n5 أنا إن فحنا سوق حوا العليس كهرباء أرضي ووصل العليس كيسة يارنا كلمة قابك ولا جاينا وجان N5 مركان دو مرك N5 أيان ليا هاي وحنا ليا مرك N5 كوما كده وحنا ليا مركا shift $1 أيان دورنا مرك shift $1 مركا shift $1 أيان دورتو وحنا ليا N هذا shift $1 أيان تابنا يا waxaan dooranayaa 5 kadib waxaan leeyahay column haddana waxaan leeyahay shift $1 ayaan taabanayaa kadib waxaan dooranayaa n haddana waxaan leeyahay shift $1 oo waxaan dooranayaa 19 kadib qoyska ayaan xirayaa soo inta waxaan ku waxaa weeye sidaan ognahay excelka qaacida ayuu leeyahay oo number kooda waxa weeye sida a b meesha qoran tahay a ilaa 19 san uu jeedno ayuu qaacidadu ku basgalaysanaya marka waxaan leeyahay marka inta markaan doono waxaan leeyahay enter ayaan leeyahay soo marka maxaan ardaygan muxuu galay kaalinta labaad ayuu galay waxaana marka inaan ogaano ardayda kale kaalimaha ee galayna inaan soo saarno asaga click siinaya kadib calaamada geeska marka calaamada blaaska ii soo baxdo ayaan jiidayaa markaan jiido waa hoos laan geenayaa soo arday walba kaalinta uu galay ayaa soo baxaya marka soo ardaygan wuxuu ka 91.7 waa kaalinta labaad yaa ugu sareeyo kaalinta kood waxaa galay ardaygan oo wato 93.2 asiga ayaa ugu sareeyo waa kaalinta koobaad marka sida kaalimaha waan aragnay soo marka waxaan rabnaa inaan soo saarno grade marka ardaygan muxuu baxay A ma B ma C ma D ma F waxa waa dhitaan weeytaan way ognahay soo marka sidee ayaan soo saari karnaa marka waa fududahay equal ayaan leeyahay marka if haddii bracket ayaan furaya marka haddii N5 greater equal 9 يعني 9 wixii ka badan maxaa marka comma shift double quote waxaan leeyahay A يعني 9 wixii ka badan waxa weeye qofka 9 wixii ka badan oo keensada waxaan leenahay A ayaa leenahay shift double quote marka kadib waxaan leenahay comma if haddii bracket aan dhahno N5 greater equal ay ka weyn tahay 8 wixii ka weyn waxaan dhihi karnaa comma shift double quote waxaan leenahay B afwan shift double quote waxaan leenahay B haddana shift double quote comma if haddii bracket aan dhahno N5 aan dhahno greater equal 7 wixii ka badan comma waxaan dhihi karnaa shift double quote waxaan dhihi karnaa waxa weeye B waasina C ayaa leenahay marka C ayaa leenahay shift double quote ayaan leenahay soo marka waxaan leenahay comma
if haddii bracket n5 greater than equal aan dhahno marka 60 wixii ka weyn comma ayaa leenahay waa comma aan dhahno waxaan leenahay shift double quote waxaan 60 wixii ka badan waxaan leenahay d ayaan dooranaynaa marka d ayaan dooranaynaa shift double quote kale and then comma ayaan leenahay marka if haddii bracket ayaan furaynaa if haddii n5 greater than equal haddii konton wixii ka badan comma shift double quote oo waxaa leenahay konton wixii ka badan waxaan dhihi karnaa waxaa weeye waxaan dhihaynaa marka waa d minus for example way d minus shift double quote comma if haddii marka bracket ayaan furayaa if haddii bracket n5 less than equal konton wixii ka yarna ama konton wixii ka yar waxaan dhihi karnaa marka waxaa weeye f weeye maxaan dhihi karnaa konton wixii ka yar waxaan dhihi karnaa f shift double quote f shift double quote kale kadib waa xirina marka kadib maxaan sameynaa waa xirina waa leenahay 1 2 3 enter okay ayaan leenahay soo arday koowaad waxa uu keensaday yani ayuu keensaday soo waxaana marka ardaydan kala ayagana inaa ogaano arday walba gareedkiisana ogaano asaan ku fiican markay calaamada geeska kan doono kulfuna calaamada geesta marka plus ay noo soo baxdo ayaan jiidayaa ilaa hoos ayaan geenayaa soo aad maxaan u muuqda ardada gareedkooda arday koowaad ayuu wataa kan b ayuu wataa b ayuu wataa ayuu wataa b ayuu wataa b kale soo f waa marka konton wixii ka yar waxaan dhaanay f waa soo u wajeeyo labadan arday ayaa fasalka ka dhacday saa u wajeedno soo marka hadda waxaan rabnaa arday koowaad ardayga labaad waxaan rabnaa aan ka dhinsan u dhigi karnaa muddooyinkaas ayaa mid ka mid ah ayaan wax u dareynaa for example ardayga labaad Soomaan hadda inta waxaan siinayna 90 ayaan siinayna inta waa 100 ayaan siinayna inta waxaan siinayna 100 kale waxaan rabnaa inaan ogaano qaabku isku beddelay 100 kale soo maxaa isbeddelay soo arday koowaad maxaan siinay so waa marka waa sida guud imtixaanaadka loo xisaabiyo sida iskuulada dugsiga sare marka waxaan rajeynayaa in arday walba iyo qof walba inuu aad iyo aad ugu faa'iideystay waanigoo ah injineer cabdinaasir maxamed waxaan idin leeyahay mar walba soo dhawaada waxaan u joognay waxa weeye in ardaydan soo saarno dhanka technology-dan aan aad uga dhisno insha Allah waxaan leeyahay kun jeer waxaan idin leeyahay waad ku mahadsantihiin sida fiican oo aad ula socotaan channelkeena hadaf show waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh